بسم الله الرحمن الرحيم آمين adiga iyo madax idaacada iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya marka hore waan salaamayaa marka kalena tacsiibaan u dirayaa in lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimatay waan walaalay dareenkaygu waxa weeye aad iyo ayuu wuxuu u gelinayaa daruur mugdi ah oo naxdin leh oo niyad jab leh oo mustaqbalka mugdi gelisay ayaan ku jiraa taasoo aan qaba inay ugu jiraan inta damiirka iyo dadnimada iyo wadanimada iyo Soomaalida ay ku jirto waxa kaloo mugdigaasi isi dheer diiro iyo dawladnimo iyo nabad iyo sharaf maalmo dhaweyd aan dareenay ayaad moogdaa inay god ku sii dhacayaan naxdin weyn geeridu xaq weeye oo dadka islaamka geerida wax la yaab maahan geeridu waa xaq laakiin waxa xaq ahayn oo aad murugo ah dhacdooyinka meelay ka bilowdeen iyo meelay ku dhamaadeen la arkaynin dadka wixii wax galaha inta la dilo looga haraayo Allah u naxariisto aan la ogeyn meelay ka yimaadeen iyo meelay ku dambeeyeen wixii falkaa geystay geerida iyo jabka iyo halyeeyada geesiyaasha ku geeriyooday goobtaas iyo dadka shacbiga iyo hantida ku burburtay naxdinta aad u hareereysay naxdinta leh murugada leh oohinta leh qaranjabka ah ma caawaan huba intii dal iyo damiir uu ku jiro inay quus taagan yihiin oo wax u hare uu jirin waxa kamid ah arinta aad taabatay ah in ciidamada lacagta faraha badan la ku qaata hubka badan ku jajabiya wadooyinka dawladda Turkiga noogu deeqday galab dadka muwaadiniinta ku jira wadooyinka hantidii iyo magacii Soomaaliya ku hagoogan ayaga la siiyo inay ka soo dhex muuqan waayaan goobaha dagaalka iyo meesha dhibaatadu ay ka dhacday aad iyo aad ayay wax u tahay masiibo hoos weyn waana haddii uu jiro il lagu arki karo ama damiir lagu arki karo dadka Soomaalida ah meel ay joogaanba waxa caawa u cad oo u muuqanaysa in aan waxay dhowrtaan u jirin ayna tahay gudnimo mid ugu hooseysay ugu sareysay in hantida iyo dhaqaalaha dunidu ay bixiso niman ay cunaan oo ay korjoogta ka noqdaan dhibaatada jirta waxaan leeyahay Soomaaliya cid uma maqnaceyna uma qolna xabaal iyo ninkeedna waa la isaga tagay kuwa wax dilaya iyo kuwa la dilaya iyo kuwa sidii lookisiga u daawanaya hadda in lagala haro haliyay wadanka waxgal u ah oo saacada ka bacdi la iska iloobo waxa weeye qaracan geerida ka sii daran waana mugdi Soomaaliya u soo hoyday waxaan leeyahay Soomaalidu meel joogtaba hadii damiir iyo islaamnimo jirto ha ka kacaan fadhiga ha ka kacaan wax la joogto ma leh geeridu xaq weeye aaminay waxa weeye dalku hadii dadka qurba jooga aqoonta ay leeyihiin iyo waxa ay ka barteen dalka shisheeye iyo wadaninimadu waxa ay tahay iyo dalkooda waxa uu ku sugan yahay iyo aqoonta ama dalka lagu soo baray ama inta ka kororsadeen ama waxa jeebkooda ku jira sida ay ugu ololeeyaan beelnimada sida ugu ololeeyaan kala qoqonaanta sida ugu ololeeyaan kuwa hagardaamada iyo lugooyada wada sida ugu ololeeyaan daraha aan buuxin ku kooban in yar iyo casho la cuno haday u ololeeyaan lahayn qaranimada iyo dadnimada iyo ciidanka iyo damiirka Soomaalimo waxaan qabaa in laga kaaftoomi lahaa cadow aan gacanta u galay iyo calool xumada habeen walba u soo hooyanaysa muhiimad weyn oo dalka qiimo weyn ugu fadhida waxaan marka hadii ay sida yeeli lahaayeen waxaan isleeyahay waxa dhacaya ma dhicin haday dhacaana waxay noqon lahayn geeri xalaala oo si looga muqurto la heli lahaa